Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guys soo dhawaada halkaan naga daawanaysin waa Mohan channel fadlan dad youtube ka cusubta subscribe noo sara dad horna joogtana like iyo share comment iyo dhiirigelin ayay noo tahay waxaan samaynaynaa maanta xalaqo qolasa ku saabsan yarkan maskiinka ee artista ah ninkan magaaladan waa lagu celcelayaa artist walbo oo sameeyo يعني bulshada kama iibsanayaan oo waxay dhahayaan wax jira maahan magaalada uu joogo waa magaalada artistka waxa imaanayo ninkan iyo ekistiis hore asigoo holiis maalmeed shaqo iskaga jiro ayuu lacag ku soo tuuraya wuxuu leeyahay qaado audio waxyo maskiinka intaas u fiiriyo ayuu lacagtii fiiranayaa markaas uu leeyahay maxaad ka wadaa macna warqaada lagu leeyahay maskiin baa tahay يعني wax walbo iskaga dul qaadanayna wax kale oo dhahay malahan waayo gaariga waxa saaran ekistiisa hore يعني ninkan hadeertan lacagtan ugu soo tura waxa waaye ninka magaalada ee u fadhisay u kala kacsanta waay wuxuu leeyahay wariya maskiin baa tahay lacagtan qaad magaalada iskaga tag artistkaaga cid u baahan malahan noocaas ma taa leeyahay iskaga tagay alaabtiisa guranaya iskaga tagaya يعني intaas dhan wuxuu ugu gaabsanaa waxay tahay qofkan ekistiis يعني كابهن مسكينك كستي سياسرن وحلا ذا هذه ثيري نك محس يعني وجليسا أساس رولق ميسا فهمت يعني مجال أنا إن كان أكل حرن وكابه مجال ذا يعني والتاجر كمجال فهمت سحر أيو مجال ذو كتشوجا مركا أرتس والبقصة صاروا أرتس كي ساكت ما معنا الصبر ذو وحيابه الصبر كابه واسكاجسو دقائق وحوزة جارجان ولا يه جارجان وأسيقب إيه لها جوكوكا wuxuu ku dhafanaa lugta ayuu ku dhafanayaa gaariga asoo ewl itaaba ahaa asoo kala dadaadana cad oo noqona fahantay marka adduunka waxa iska ah maanta hadii ay ka jaban tahay bari bay ku kacaysaa kaabihii gaari lugta ka banjarsan gab intuu lugku si goofani hore wadaatay qab uu ku celi albaabka soo dhaca asidana wuxuu noqonaa mintaqaana uu kala dadaadana weliga marka aad magaalo ay joogto xaaladda aydaaba laba nooc ah fahantay maalin ku toosaysaa maalin way ka jaban tahay kaabaha sawirkiisa magaalada dhan ku dhaganba asee u kala xiran tahay alultuma xaaji qamsiintiisa oo iska kaxaystay oo iska baxay dhanka ay wuxuu soo galaya magaalada magaaladan aad u jeediin waa magaalada artistka waxaa ka atoora ah kaabahaas wuxuu sameeyo wuxuu soo saaray lay gadmaa kaabahan istilitidii ku kacday artist may u sidhay waxaan jirin ayuu sameeyay oo ku raaxaysanayo ugu dhadheelaa dadkii wala yaabiyeen oo sacbinayaan yani marka magaaladan waxa ku dhiman oo kaliya miskiinkan adeertan soo socdo miskiinkan nolol maalmeedkiis ayuu iska raasanayaa wuxuu rabaa artistkiisa maaragtay inuu professional noqdo bulshada dhan ay ka iibsadaan laakiin uma suurtagelayso dhukurkaas yani ka soo horjeedo kaabahan waxa waaye waxba iska sawiraya artistka soo socday xaafadan imaana maybe xaafad inuu degan yahay saaxiibadiisna ay degan yihiin aan u maleynaa marka magaaladan dhana waxa waaye qof walbo gacantiisa ayuu ku joogaa iyo wax soo saarkiisa kumanaan sawir ayuu sawiraa saasay tahay wax u gadmaayo wax u soo saarmaya malahan mar walbo waxa waaye fahanti gadaana laga boosaa ninkii guriga oo ka degnaa iyo asaga isqabteen waxa la saaxiibay kirada isi dhac ujiga ugu dhafanaano qabsaan la kiradaada macnaha waa iga haysataa markaas uu leeyahay bisha hore war adiga fiiri bisha hadii dhibaataan ku sinaa Allah ma fahanti ala caalkii kordaa oo yaabay adiga caag biyo ku soo tuuray ninkana jaalis waa caag uu baraadiyaa fahanti uu ka ganacsadaa macnaha caagada fara badan haduu helo uu raadiyaa oo ka ganacsadaa wasaq baa tawlee waraa iga tag marka kaabi intaasoo dhan caag ayuu haastaa eegayniska saas kale waxa waaye marka kaabaha meelahan oo imaana kaabahan oo sigana baahi socoto ah oo ku raaxaysanaa marka wuxuu leeyahay walaa sawirka fiiri artistka la kala kicay maxaa idinka qaldan idinka professional baa tihiin hala kala qurxiyo balaa kaabiha imaada marka markaas uu leeyahay fiiri ina wax bartaa raba yaa taale lacagta keen miska waalaayna waxba soo gacad u saaraa alla fiirna maxay taale waxaan lacagta soo bixisay yaa maxay u socotaa maxay yani maxay ku qabanaysaa raaxa lacag mana leeyahay fadadi
waxa la ima wareega lacagtan wax ku dar haddii kale or iskaga tagaa le meesha oo iska qaadanaya markaasuu leeyahay aniga fiiri inaan artiskayga soo saara u baahanahay farshaxankayga wuu fadhiyaa wax walba waan sawiri karaa oo taagaya maxaa sawiri kartaa maxaa taqaanaa oo maxaa sawiri kartaa bulshada maxaad usoo bandhigi kartaa wax aad tahay ma lahan le mafahate nothing wax aad tahay ma lahan wax soo saarkaada ma soconaysaa la mafahate haddaa wax isku haysa soo baxa le soo bax waxbaan ku tootusinaya waa la soo wadaa waxaa la soo saaraa dabaqa janjarada kusoo soconayaan dan kadib hoolka waxaa la keenaa artiska markaasaa waxaa la tusinaa nashqadaha la sameeyey iyo waxyaabihii markaasi ee gacanta ay kusoo saareen ee daawaceen ayaa la tusinaa markaasa waxaa leeyahay maxaa isku haysaa maxaa sawiri kartaa lacag aad wax ku baratid ma haysataa haddaadan wax aqoonin sig waxbaan ku tusinaa uu leeyahay kaan fiir ma ujeedaa sawirkaan ma ujeeda ahaa baradhadan waxay u egtahay yani baradha bisla hadda loo cuni karo oo kale ma sawiri kartaa baahi ay hayso ma sii kartaa oo taagan macnaha war aniga fiiri waxaan maskaxa laga soo shaqeeyay wax mar hore laga soo fikir waa igu taagan yahay fate ma sawiri kartaa markaasuu leeyahay waxaan fiiri waxaan niyo artist waa u taagan fate adi baahina markaa goonaysay waxaan sawir la waaye caasiga dii baahi ku hays maqaaxda tag ord wax socona leh marka kaabihii meeshan ay ku marmaayeen dan kadib uu iskaga dhaqaaqayaa waayo mar walbo aad hami aad leedahay rajo aad leedahay qof ka hor istaago ma weynaysid ninkaa nolol maalmeedkiisu iska raadsadaa waxaa waaye juhdi iyo dadaal intuba uu ku bixiyaa si maalin un yacni noloshiisa ay heer u gaarto waxaa laleeyahay saaxib maan aniga waxba kuma hayo mafahante haddii aad u baahan tahay inaad wax baratidna lacag waa inaad la timaadaa lacagtaada la imaado leeyahay lacagtaada isku soo saar kadib markii murmaan way kala tagayaan wuxuu arkayaa wuxuu imaanayaa saaxiibadiisa waa camool wax ma arkayso halkan ayay ka shaqaysataa yani qaybta masaajka ayay joogtaa ragga ay u masaajaysaa kii basada dhukurna oo waxaa waaye kistiisa ka dul qaadane meesha ayuu joogaa si lama filaan ah ayuu arkayaa isagoo yani meesha iska joogo marka gabadhii foodayna dabadu ka taabanaya kii dabada ka taabtay wuu ku qoslaya wuu ku shactiraysanaya maxaa ka badda ay leedahay shaqaysuu leeyahay caadi waa waxaas waa la taabtaa la sugtoo jiyahay shuluu qaadna wuu soo booday markaasuu leeyahay balaa say dhab wuu ka taabtay yacni way ka dhanaansaday gabadhi caadi u dhanaansaday maxaa idinka qaldan leedahay maxaa ciyaal suuqnimadana wasaqiin baatiina leedahay baastiriin ah oo weliba ciyaal suuqiyiin ah dhac dadabadu kasii taabanaa yacni kana ugu sii celina way foodeynayaan waa rag waaweyn ah oo gabar maskiin ah oo weliba camoola ah ayay wixii ku sameynayaan ku dhanaansanayaan yani ayada uma jeedo kii taabanayo hal qof maa taabano laba qof maa taabanayso ma kala oga micnaha way ka dhanaansanayaan laakiin saasay tahay atooraheeda meesha jooga u arkayba daawaday mafaati indhihiisu ku arkay yani markay gabadha foodeynayeen ee dabada ka taabanayeen say ku soo baxayaan marka inay soo baxaan ay rabaan waa uga aara markay soo baxaan iyo ayagan dabada dhab ka siinaa waa uga aaray wayaabin indhahay soo taageen maxaa ka qaldamay ay leeyihiin macnaha maxaa ka qaldama meesha taalehe waayo gabadha maskiinta ah ayaa dabada ka taabateen aafoodaysan markaasuu leeyahay idinka maxaa idinka qaldan macnaha wax aad samayseen ma ogtiin macnaha waxaa samayseen ma ogtiin waxaad tihiin ciyaal suuqin oo baastiriin ah oo wasaq ah ayaa tihiin oo leeyahay waayo gabadha maskiinta ah ee camoolada yani gacan qad ayay sameynayaan macnaha intuu isdhoo ka aarso waxa wejiga dhan laga buusbuusaa mafaati ayuu taagaya macnaha war waxaa samaynaysiin waa qalad gabar baska ee gacan u qaadeen maybe meeshay iskaga soo tagayaan gabadhii marka wuxuu leeyahay ragga waa tumay mafaati fiirahan ka garaacayo oo waxaan u reebtay malahan mafaati yani ayada uma jeedo qeylale maqlaysa marka qeylada waxay malaynaysaa in ayaga ay qeylinayaan yani in ayaga qeylinayaan in asaala tumayo fiiraha laga garaacayo oo laga qeylisiinayo ma ogo maskiintii macnaha indhaha ayay laadahay mafahante adiga laba sheek bar ayuu ka gadayaa wuxuu leeyahay aniga ragga waa tumay waan kaaga aaray ciyaal suuqiin bay ahaayeen mafahante haddana yani horumarkayga inaa soo muujiya ayaan u baahanahay hami ayaan leeyahay inaa artistkayga soo bandhiga u baahana u taaga mafahante mid kale wuxuu leeyahay hadiyad ayaan ku hayaa oo surprise ah maxaa way leedahay yani kabo ayuu usoo bixinayaa kaba ayuu u xirayaa mafahante يعني وجعل يهاي جعل لوف أكده gabadhii kabaabka gashato yani farxad ay qalbiga ka dareemaysaa mar walba qofka markuu yani baahiya gaarka u qabo inaad caawisid yani muhiim weeyaan mafaatid
mar walbo ninkan wuxuu jecel yahay inay yacni wuxuu u sameynayo inay indhaheeda ay ku aragto ma fahamtay way faraxsantahay kaale iska arag way kaa beenaysaa oo farxadeedu ka tiri laakiin hab ayay siinaysaa asigana yacni wuxuu isleeyahay ma fahamtay niyadda u dhis micnaa niyadda u dhis way daasigareynayaan xoogaa yani mar walbo qofka kaa liita weligaa marnaba ha ka fogaan oo ha ka tagin mar walbo qofka kaa liita ayaa u baahan inaad garab siisid inaad gacanta ka qabatid aad hor u jeedid ma ahan inaad yacni aad hore ugu sii socotid qofka mar walbo aad caawisid waa kulama ay noloshaada horumar ay gaartaa marka kaabahan maadaama uu gabadha aad u jecel yahay wuu kulkulinaa farxadeeda ayuu mar walba ka talinayaa niyadda ayuu dhisayaa ma dareensiinayo inay camoolo ay tahay ma dareensiinayo qalbigeeda dhaawac inuu soo gaaro waxyaabahaasoo idil dhan wuu ka ilaalinayaa macnaa gabadha loof ayuu ku yahay markaasay leedahay adiga ma i jeceshaa haa waan ku jeclahay run ishag ayay leedahay marka meesha ay joogaan waa meel yani dad ay joogaan markaasuu leeyahay markaasay leedahay yani meesha aad joogno qof ma joogaa ha ayuu leeyahay marka iyada ma jeclo bulshada dhexdeeda in yani waxyaaba maaragtay romantic ay ku sameyso ama laabta la geliyo ama la dhunkada ma jeclo marka saas ay tahay wuxuu leeyahay bis caada iska dhig yani saaxiibkii ayuu ahaa haddana waxba uma jeedo waxaa waaye caada iska dhig may way xanaaqaysaa way ka tegaysaa kaabii waxaa waaye nin la soo jukeeyo waaye meel u roon ma lahan xibin ayuu u aalaalaa micnaa wuu kala dhacsan yahay habeenkii sidaas ay ku kala tagayaan kadib xili saq dhexe kaabii yani si saaxiibkiisa is helayaan meelay kor inay soo fuulaan yani qamri ay ku cabayaan dhowr qamri ay cabayaan kaabaa shukaasuu ku jira waxaa waaye life miya tiktok iska daawanayaa kaabihii kalena xaaladdaa ku wareysa wuxuu taagan intee wax ka bilaabaa xaggeen wax ka soo qabtaa ma fahamtay adduunyada dhanaa ku qasan nin meeshaasna life ooba iska daawanayaaba adduunka maba la socda micnaha ma ka qasnaba ninka ka jifta ninkaa wardhiyo tala keen oo taagan ma fahamtay intee wax ka bilaabnaa yaa magaalada kii bas dhukurkii ah ayaa qabsaday oo waxaa waaye wuxuu soo saarabo bulshada ay ka gadanaan aniga wax walba aan soo saaro juhd walba aan bixiyo wixiyga waxba uguma jeedo ee tala keen ayuu taagan ma fahamtay marka waxaa waaye ninkan u kala fadhisaa oo magaalada dhanaa u kala fadhiso way ka dansan tahay micnaha ma fahamtay u kala fadhisaa marka ku dhahay way ka dansan tahay yacni qofka markuu hami leeyahay qof baa kasoo horjeedsada magaaladu jooga haddana waxaa waaye magaalo wada tactica ah wada sixra ma fahamtay wuxuu leeyahay aniga xalayto maraan seexday waxaan ku riyaaday yani anoo yani artistkeyga waxaan soo saar laga gatay guri helay adduunyada dhan noo kuftay yani waxaas ayuu leeyahay ma fahamtay kaabaa waa wada sheekeysanaan yani sheeke istiin weeyaan ma fahamtay sheeke istiin weeyaan say cabitaanku cabaayaan al-ultum bay ka dhacayaan ma fahamtay markaasuu leeyahay cabitaanka caba jees cabitaanka la cabaa waxaba dhowr qamri markii laga tuuro kadib waxaa waa indhaha isgala miiska ku hordayaan adiga xili dambe weeyaan magaalada dhan saas u iftiimaysaa waa magaalada artiska halkan ay aalaan macnaa ay jijiifaan ha iska jijiifaan ma xuma kaabihiya riyada uu arkayay u urmoobi doontaa adduunyada uu ku fiiso ma fahamtay adduunyada maanta haday kaa jiifto birada iska leh maanta dad aad lahayn bir ayaa leedahay bira dad aad leedahay saadaba ma lihid marka waxaa waaye qajaf oo dareemay kaabii waxaa waaye riimaa maqraboosaa rurun waa u taagay macnaa waxboo dareemay wax oo yacni gugaac ama waxyaabo soo socdo dareemay saaxiibkiisoo kicina warhooy waa laisku imaaday kac uu taagan yahay waa laisku imaaday kac ilan dadaa waxaa waaye cirka kasoo degayo hawada macnaha qolo sixirka ah hawada kasoo degayo oo yacni artistka aad ugu dheeray magaalada dhan u kala fadhiso ma fahamtay tiimkaas hawada kasoo degayo way soo socdaan kaabiyi war kac waa la isku imaaday kac ninkan ismaba hawada ku jiro dhowr dhalaa ku maqama dhowr dhalo waa cabitaan badan oo cabay kaabiyi intoo yaabay oo goofidiis madaxa ku dirsaday waxaa waaye oo iska sii seexday waa cabsaday macnaa ma fahamtay cabsidii awgeed koofidii madaxa ku dabashtay kuwii sixirka ahaane wuxuu kusoo degayaan agtooda يعني kuwaana ma ujeedaan yani ayagan mis arkaya laakiin al-ultimo kaabaana fashilaa asaas fashilaa waa kuwan way soo degeen yani waxyaabo sicir camal ay kusoo degayaan iftiinkaas aad u jeedid waxaa waaye kuwa waxaa kasoo bixaysa gabar marka kasoo baxdo
trip waa kana way soo dhaxday in saracaadku waa mafaanta kuwa in saracaadka waa gabadha kadib waxay wacanaysaa asxaabteeda ilaa iyo 3 wiil kale waxa waa hawada kasoo afuufaysaa markay soo degaan kaabahan u dhankana macnaa wuxuu leeyahay maxay sameyn rabaan waxay sameyn lahaayeen asaaba ka kala burinayo oo ka tagaay macnaa mafaanta oo isfashilina asal looma jeedo aagan yani iskuma jeedaan tiimkeeda wacanaysaa waa loo imaanaa marka macnaa gacanta cirku taagaysaa hawada waa kana budbud xageeb ka soo baxaya ilaa 3 qof ma fahanti tib waa kana dhulkaba joogaan 3 rag wayaabaya kaabi war maxaa qaldan see wax u jiraan sixirkan maxaa waa oo in saacadka maxaa waa loo wiila soo degtay okay intee wax ka bilaawna ay taageen macnaa kaabahan asayn wayaabaya war see wax u jiraan intee wax loo wada ayuu taageen telefoonka la soo baxaa telefoonka marka la soo baxo wuxuu leeyahay duubo kuwan waxay sameynayaan duubo ilaan doqonnimadiisa telefoonka flashka uma xirno flashka iftiima kadib gabadhiya flashkii arkayaan bud way mirqayaan macnaa isla markii way mirqayaan taabihii wayaabaya war intee aadan adaa bursiye haddii wax ka faa'iidaysaneed marka wuxuu ku arkaa dhulka qalinkaasoo waxyaabo fara badan ka saacidayo oo noloshiisa bedeli doonta ultimo qalinkan waa qalin sixir ah goorma ogaana marka xiliga oo yani artist oo bilaabo doono ayuu ogaana marka wuxuu isleeyahay waxaan qalin iska caadi ah waa mafaati artist waxyaabo oo ka saacidaya ayuu leeyahay uu soo degaa qalinkii oo qaadana qalin markii uu qaato qalinkii oo soo qaatay kadib xaafadu iska imaado iska seexday soo jiifo yani wuu qarweeyaa adduunyada dhanaa ku soo duntanagay gurigeega ku soo dumay guriga bas dhulkii waa macnaa sheekada mafaati soo urdaa maroo soo kaca wuxuu leeyahay yaabay intii wax ku dhaceeyeen sabab wax jira war saaxiibkiisa wuxuu leeyahay maxaa ka qaldan ma yani maxaa soo kacday war waxa arko dhaaniyo mafaati adduunyada noo kuftay oo balaay yaa maxay wax jiraan u taagay macnaa warani baahi ay soo taagay mafaati waxa uu isiiniyo saqdhax waaye war waxa xukuumaya fiil caadiska lagu taagay mafaati waayo waa hurdees maatana hurdees waa soo qarbaday balaay lagu qarbaysaa war niyada qeyr u sheego taagay mafaati wax walba iska hagaagayaan aniga waxa wax qabadkayna arka u baahanaa marka kubii 3 qof oo arkay sawirkood adribiga soo muuqday sawirkooda arkaa markaasuu leeyahay war kuwaariyada ku arka kuwaan waa naftirkood waa igu taagan mafaante kuwaan naftirkood waa igu taagan sawirka anay arkay kaabi intuu xanaaqo sawirka dhan soo qaadano sirto dul saaray oo ka qariib macnaa waragan aniga xalay tiriyaan ku arkay riyadina waa kuwa irmoodo taagan wajigeyga taagay macnaa saawac yeelaa u taagay xaaladna isku imaada mafaante meel wax uu ka bilaabo ayuu leeyahay kadib uu kacaa wuxuu isku dayaa inuu waxyaabo u sameeyo mafaante waxyaabo dhaqdhaqaaq inuu sameeyo ayuu isku dayaa xalayto yani qalin soo qaadmo qalinkii soo qaatay waa karaan ilaa xalayto markii qalalada qamri ee caawin tiimka imaadeen qorigana waa qalin marka wuxuu isleeyahay maadaama artist aad tahay kalarada qaar markay ka go'aan oo ku anfaco isdooya mafaate oo soo baxay gabadhan ayuu u baahan yahay inuu sawiro gabadhan yani sawir yani ayadu ilaala sawira mafaate oo sawira markuu sawiro kadib waxa waaye qalinkii ka dhamaanaa qalinkii ka jabe markaas wuxuu soo qaadanaa qalinkaas oo haystamaana qalinkiis kala kalarkiis ma hayo laakiin wuxuu soo qabsanaa qalinkii oo tiimka ka dhacay oo soo qaadanaa maybe kaasa xooga oo kala rahan isku shabaha kaasoo ku dhameystiraa event kanna marka wuxuu ogaanaa adduunyada dhan inay markaas ku fiiso u kala kacayso gabadhii sawirkeedu yaa maxusmina okay qalinkii oo qoray okay afkii u sameeyay let's go it hay maxuu sawiray okay yaa maxuu sawiray wayaabeen see wax jira macna sawirkan dhaqdhaqaaqay maxaa waxa soo baxay dhagaxa soo baxay yaa see camalo dhaa macna kut wanaxay see camal yaa see wax jira u taagay maxaa waxan dhagaxa waa dhagax okay qalinkii la yaabaya wuu soo dhaqaaqay haddana waxyaabo kale ayuu sawira muxuu sawirtana tulo wayaabaya sida wax u jiraan u taagan tufaax ayuu sawira tufaax markuu sawiro tufaax waxa soo baxa oo rumaati wayaabaya baahiya saacadan ay ka disay kaabi tufaax ayuu sawiray
warqadii fut waa kana tufaax rasmiya soo baxaybo see camal ayuu taagan yahay wah been allah tufaaxii gacanta ku soo qabsanaa inuu run yahay inuu been yahay uu fiirnaa marka wuu goosanaa markuu goosto ayuu ogaanaa inay run tahay inay been tahay tufaaxii uu sawiray tufaax sawirkiisna meeshuu ku dhagan yahay laakiin tufaax rasmina uu soo baxay oo yaabaya wuu goostay macaan waa uu taagan yahay bisinka aad iyo aad u mahadsantahay inta la soo gaartay fadlan muuqaalka noo shirgale laagii shirko matidib dhiirgelinano tahay part 2 ayaa inoo balan ah iyo muuqaalkan kaloo qurux badan la socod wanaagsan aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.